in ku badan 400 askari oo ku mid nagada doonaan ah ciidamada booliska gaarka ee dawlad goboleedka Koonfur Galbeed Soomaaliya yaa muddo 6 bilood waliba tababar yoonka dareere dugsiga tababarka degmada Diinsoor ee gobolka Baya haanas oo la dagaaltamo doonaan kooxo maleeshiyada al-shabaab oo dhibaato ka hay ummadda Soomaaliyeed gaar ahaan shacabka ku nool deegaanada Koonfur Galbeed ciidamadan ya waliba yoon dhaaradena sidii on difaac lahaayeen shacabkii waliba deegaanada Koonfur Galbeed Soomaaliya oo ka duuleen kooxo maleeshiyada al-shabaab waliba si toos iyo tababarka qaadana degmada Diinsoor tababarkaas oo biyayeen saraakiil ku tirsan dawladda federaalka iyo waliba ciidamada Itoobiya ee ku sugan degmada Diinsoor muddada tababarka iyo dareera ciidamadan ya waliba galansii doone saraakiil dawladda federaalka Soomaaliya maamulka degmada Diinsoor iyo waliba ciidamada Itoobiya kokomid macallimiinta tababarkan siyahaya ciidamadan ku mid nagada doonaan ciidamada booliska gaarka ee dawlad goboleedka Koonfur Galbeed Soomaaliya iyo Suldaan Siidey Xaaji Manuur waliba iyo ku warbiyayna baahada ciidamadan lan tababaraya muddada tababarkan dareer iyo waliba sidoo ku qayb qaadayna sugidda amniga shacabka ku nool degmada Diinsoor ee gobolka Baya kan maylan tababarayay 12 bilood oo dadaal badan la hangeliyay inay dalsho macna difaacaan oo cadowga oo meel kasta macna inteegin oo hareeraha degmada macna joogo inay ka safeeyaan baydhabo iyo Diinsoor iska furaan cadowga dhan macna inshaada dheereeyaan aan istaagin oo intaas macna inshaada dulqaadayoon hanmuuji ciidankan waa ciidan madani ah oo dalkooda u istaagay wadaniyiin ah dulqaad badan sameeyay annagoo dhan macal ciidankayga waxaan diyaar u nahay inaan ka fogeyno nimanka nabadiidka dalka inaan ka fogeyno ayaan diyaar u hadda diyaar man ana dhalinyaradu oo inta surun anagu haytan 300 qof haddii ilaahay idin ma inka tala galnay ugaasida marka horta walaan ra'yigu barnaamijku yoo washeenan isla markaas haddana wal abaabuli isku dubi dhiyeen ilaa 300 qof inta surun dhalinyaro kiin argo haytan dhalinyaro oo 20 jeer way mayna diyaar ayeen Koonfur Galbeed meel kasta leen baahda haddii hubsho halan dhasho halan Koonfur Galbeed meel kasta leen ka baahda in la jeeyko yaa diyaar ayeen ciidamadan tababarkan ka dareera degmada Diinsoor ee gobolka Baya madiyo tababar shoon dhamaad iyo kuma nagado doonana ciidamada hamiyo maalin inteegan difaaca shacabka deegaanada Koonfur Galbeed Soomaaliya